السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جانالك marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin. Maanta waa 8 bisha 12 December sanadka 2024 waa maalin axad ah. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago wareysi madaxweynaha la doortay ee Donald J Trump uu siiyay telefishinada dhinaca bidixda u janjeera kii ugu horeeyay oo ah telefishinka NBC. wareysigan jimcihii ayuu bixiyay laakiin maanta waxada ayaa waxa laga sii daayay telefishinka NBC gaar ahaan barnaamijka axad kasta baxa ee la yiraahdo Meet the Press oo gabadha la yiraahdo Kristen Welker ay daadihiso. wareysiga Trump waa 1 saac iyo 16 daqiiqo iyo 37 second ayuu ahaa, laakiin meelihii ugu muhiimsanaa waxyaabihii la weydiiyay ayaan rabaa inaan idin soo koobo. wareysi dheer ayuu ahaa oo dhinacyo kala duwan uu uga hadlay. Trump waxa uu ugu horeyn waxyaabaha la weydiiyay oo gabadhan Kristen Welker ay weydiisay waxa kamid ahaa wadanku waa uu kala qaybsan yahay, waana ognahay doorashadii 2020 inaadan weli aqbalin, ma aqbalaysa ayaa la weydiiyay. markaas wuxuu yiri maya ma aqbalayo. waxay mar kale ku celisay haddii dimuqraadiyiintu doorashadii 2020 ay xadeen xilligaas oo adiga aad madaxweyne ahayd, hadda oo dimuqraadiyiintu ay madaxweyne wadanka ka yihiin 2024 maxay u xadi waayeen doorashadii hadda November 5 dhacday. markaas waxa uu yiri doorashadan waa ay ka weyneed mid la xado, macnaha wuxuu la jeedaa codad aqlabiyada ayaan ku guuleystay, tan ma aysan u suura galeyn ayuu yiri in ay xadaan. sidoo kalena waxa la weydiiyay arinta kala qaybsanaanta wadanka oo waxa uu yiri Biden ayaa wadanka kala qaybiyay, isaga ayaa hadda wadanka madaxweyne ka ah. isla markaana waxa uu sheegay waxa uu hubeeyay wasaaradda cadaaladda si ay baaritaan ugu sameeyaan siyaasiyiinta isaga ka soo horjeeda. uu yiri aniga aan kamid ahay ayaa sidaasi ay sameeyeen. marka sidaasi ayuu su-aashaasi uga jawaabay Trump. waxa uu sidoo kale la weydiiyay wasaaradda cadaaladda hadda dabagalma waxay ku sameyn doontaa siyaasiyiinta dimuqraadiyiinta ah. arintaasina waxa uu yiri xaq ayaan u leeyahay inaan sidaasi sameeyo laakiin ma sameynayo. waxa aan diiradda saari doona ayuu yiri hoos u dhigidda sicirka waxyaabaha qudul daruuriga iyo sidoo kale adkeynta xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico. Kristen Welker waxay mar kale weydiisay 2 isku day dil ayaad ka badbaaday intii ololahaada doorashada aad ku jirtay, hadda ammaankaadu ma sugan yahay oo ammaankaada ma ku kalsoon tahay? ha ayuu yiri waanan ku kalsoonahay ayuu yiri ciidamada Secret Service-ka. waxa uu sheegay waxyaabaha dhacay ma aysan ahayn ayuu yiri in ay dhacaan, sidaas darteed waxa uu yiri hadda ciidamada Secret Service-ka waan ku kalsoonahay. sidoo kale waxa uu yiri xilligii ololaha doorashada aan ku jiray ololahiga doorashada ilaa iyo 50,000 oo qof ayaa ka soo qayb galaysay. waxa uu yiri Bidenna waxa ka soo qayb galaysay ilaa iyo 30 qof. marka wuxuu yiri sidee Secret Service aniga ka badan uu u helayay? arintaas wuxuu leeyahay Secret Service-ka ayaga ayaa idayacay ula jeeda, laakiin waxa uu muujiyay in uu ku kalsoon yahay. waxa sidoo kale la weydiiyay taageerayaashii adiga dadkii aan ku taageerin doorashada oo aan ku codeynin sidee ula dhaqmaysaa? waxa uu yiri waxaan ula dhaqmayaa sida aan ula dhaqmo taageerayaasha MAGA oo aniga ay taageersan waa Make America Great Again halku dhigiisa Trump. waxaan uu yiri si xushmad leh ayaan ula dhaqmi doonaa, sida aan taageerayaasha MAGA ula dhaqmo ayaan ula dhaqmi doonaa. waxa uu yiri wadankeena waxaan u horseedi doonaa guul ayuu yiri, sidaas darteedna waxa uu yiri ammaan iyo badqab ayaan u horseedi doonaa. wadankeenu qatar fara badan ayuu wajahayaa ayuu yiri, sidoo kale sumcadeena caalamku hoos ayuu u dhacday, sumcadeena dib ayaan u soo celin doonaa. waxaan wadanka ka saari doonaa uu yiri kooxaha dambiilayaasha ay xabsiyada ka soo baxay isbitaalada dadka waalan ee wadankeena soo galay, dadka soo galootiga ah ee Latin America sida Venezuela iyo wadamadaasi ka yimid ayuuna Trump ula jeedaa. sidoo kale Kristen Welker waxay weydiisay January 20 marka lagu dhaariyo maxaa khudbadaada ay noqon doontaa, fariintaadu maxay noqon doontaa? wuxuu yiri fariinteedu waxay noqon doontaa mid midnimo muujinaysa wadanku sidii uu u midoobi lahaa, isagoo sheegay sidoo kalena in guusha iyo midnimadu ay wada socdaan. sidaas darteed waxa uu yiri midnimada iyo guusha ayaan muhiimadda saari doonaa. waxaana uu yiri 4 sano oo guulaha ayaan wadankan soo hogaamiyay waa 2016 ilaa 2020. haddana waxa uu yiri waxaan rajayn doonaa in 4 sano oo kale wadanka aan guul u horseedi doono. waxa uu yiri haddii aan wadanka madaxweyne ka ahaan lahaa Ruushku ma aysan weerareen Ukraine,
October 7 Israa'iil arrintii ka dhacday ma aysan dhacdeen waxaana sidoo kale uu yiri sicir bararka hadda jira ma uusan jiri lahayn sidii masiibada ahayd ee Afghanistan ciidamada Mareykanku ay uga soo baxeen ma aysan dhici lahayn intaasi oo dhan wuxuu yiri haddii aan wadanka madaxweyne ka ahaan lahaa ma aysan dhici lahayn waxa sidoo kale la weydiiyay madaxweynihii ugu da'da weynaa ee la dhaariyay ayaad noqonaysaa 20 January 78 jir ayaa tahay caafimaadkaada waxyaabaha warbixinta caafimaadkaada la xiriirta ma soo bandhigi doontaa wax dhiba kuma qaba ayuu yiri in aan soo bandhigo arrintaasina waan soo bandhigayaa sidoo kalena waxaa la weydiiyay bartiisa True Social oo isagu leeyahay Trump waxaan ognahay markii January 6 ay dhacdo madaxtinimada uu ka dagay in Facebook iyo Twitter iyo meelo fara badan laga xiray kadibna bar isaga u gaar ah oo True Social leeyahay uu sameystay waxaa la weydiiyay arrintaasi maadaama madaxweynihii wadanka aad noqonayso dhinac mad ka istaagi doontaa bartaada True Social oo lacagteeda ma qaadanaysa wuxuu yiri anigu guddiga kuma jiro mana maamulo dad kale ayaa maamulo waxa uu sidoo kale ku faanay Trump 4 sano hore wadanka madaxweyne uga ahaa in xitaa mushaarka madaxweynaha uusan qaadan jirin oo sanadkii $450,000 ah uu ku deeqi jiro bixin jiray haddana waxa uu yiri ma qaadan doono wax mushaar wuxuu yiri taariikhda ma ogi madaxweyne Mareykan ah oo mushaarkiisa aan qaadanin wuxuu yiri Kennedy tajir ayuu ma hubo laakiin wuxuu yiri aniga oo kaliya ayaa madaxweynihii ugu horeeyay Mareykanka oo mushaarkiisa aan qaadanin 4 sano hadda aan wadanka soo maamulay iyo 4 sano hadda January 20keeda ay bilaaban doonto wuxuu yiri mushaarkayga ma qaadan doono mana u baahni ayuu yiri sidoo kale waxaa la weydiiyay qoyskiisa waxaa la yiri qoyskaadu ma ku lug lahaan doonaan maamulkan cusub waxaan ognahay wiilka gabadhiisa qaba Ivanka oo la yiraahdo Jared Kushner oo hadda wiilkaasi aabihiis uu u magacaabay safiirka Mareykanka u fadhin doona Faransiiska ayaa waxa uu sheegay ma ku lug lahaan doonaan wuxuu yiri qoyskaygu waa qoys aad u wanaagsan wax badan ay soo qabteen Jared Kushner waxa uu ku amaanay heshiiskii Abraham Accord loogu magac daray oo lagu heshiisiinayay Israa'iil iyo Imaaraadka iyo Bahrain iyo Sacuudiga iyo waxa yiri wax wanaagsan ayuu qabtay isla markaana aad ayuu ugu amaanay waxa uu yiri haddii uusan wax kala qabaninba intaas inuu qabtay ayaa wax weyn ahayd sidoo kale Trump waxa ay gabadha Kristen Welker ay weydiisay maalinta kugu horeysa marka lagu dhaariyo wareegtooyin dhowr ah iyo soo saari doontaa ma ii sheegi kartaa mid kamid ah kuwa ugu muhiimsan ama ugu sareeya arrintaas waxa uu yiri waxaan diiradda saari doonaa arrimaha hoos u dhigida tamarta wadanka adkeynta xadka iyo sidoo kalena hoos u dhigida sicirka wadanka oo waxyaabaha raashinka qudul daruuriga ah inaan hoos u dhigi doono gawaarida electric carka sidoo kale waxa uu yiri in qasab laga dhigo in la iibsado maahan waxaan ognahay Elon Musk in hadda uu Trump oo isagu shirkadda Tesla iskale inuu Trump aad u taageero waxa la leeyahay 250 milyan lacag ka badan ayuu ku bixiyay ololihii Trump marka sidaa darteed waxa uu yiri in dadka lagu qasbo maahan in gawaarida electriga ay iibsadaan arrintaasina meesha waan ka saari doonaa qofka isaga ayaa awood u leh gaari hybrid electric iyo mid ku shaqeeyaba inuu iibsanayo Trump sidoo kale waxa wax laga weydiiyay qaar kamid ah xubnaha dawladdiisa hadda uu u magacaabay laakiin wali aan la ansaxin oo qaarkood muran uu ka taagan yahay waxa kamid ah ninka uu u magacaabay inuu FBI-da hogaamiyo oo la yiraahdo Kash Patel waxa uu ninkaas waa uu difaacay waxana ay gabadhu tiri ninka hadda aad magacaawdo waxa uu haystaa liis ilaa 60 qof oo uu ku tilmaamay deep state inay yihiin isla markaana uu burburin doono adiguna sidaas oo kale ayaa tiri marka wuxuu yiri wixii uu rabo ayuu sameyn doonaa ma ku amraysta ayaa la yiri inuu dadkaasi dabagal ku sameeyo anigu kuma amrayo laakiin wixii isagu u arko inay saxan yihiin waa inuu sameeyaa gaar ahaan wuxuu yiri waxaan u maleynayaa dadka qaarkood inaysan daacad wadanka aysan u hayn siyaasiyiin musuqmaasuq ay yihiin hadday sharciga jabiyeen dadkaasi dabagal waa lagu sameynayo yiri sidoo kale waxa uu difaacay ninka wasiirka gaashaandhigga uu u magacaabay oo Pete Hegseth oo isagana arrimo falal galmo iyo inuu qamriga aad u cabayo waxyaabo fara badan ay dul hoganayaan wuxuu yiri waan ku kalsoonahay in isagana ay Congressku ay ansixin doonaan isla markaana ninkan Kash Patel waxa uu yiri ma u maleynayo isagana qof ka soo horjeesan doonta inay jirto marka la ansixinayo sidoo kale Trump gabadhan waxay weydiisay Kristen Welker waxa aad ku soo qortay bartaada True Social bishii June 12 sanadkii 2023 ee dhamaaday in aad dabagal ku sameyn doonto qoyska madaxweyne Joe Biden oo baare qaas ah aad u magacaabi doonto adigoo ku tilmaamay madaxweyne Biden inuu yahay madaxweynihii ugu musuqmaasuq badnaa ee taariikhda Mareykanka soo maray qoyska Biden waxa tiri waa crime family waa qoys dambi gacmaha kula jira marka magacaabi doontaa baarahaasi qaaskaas si uu dabagal ugu sameeyo qoyska Biden iyo waliba madaxweyne Biden si toos ah ma uusan uga jawaabin arrintaasi waxa uu yiri waxaan doonayaa wadankeena inaan guul gaarsiiyo ma doonayo
in aan dib u laabanno. Arrintaasi gabadhu mar kale ayay ku celisay oo waxay tiri arrintaasi ma doonaysaa inaad samayso. Waxa uu yidhi marka la barbar dhigo aniga waxyaabihii la igu sameeyey oy ka mid ahayd in dacwada laygu soo ogay, in maxkamad la ii saaray, in xilligii aan madaxweynaha ahaa 2 jeer xilka qaadis la igu soo ogay. Waxa uu yidhi arrintaasi waxay ahayd arrin laga yaqyaqsado, marka xaq ayaan u leeyahay inaan aniguna aargoosto, laakiin haddii la arko in dembi uu meesha jiro markaasi baaritaan waa la samayn doonaa. Trump wuxuu yidhi dabagalka ay igu sameeyeen Biden iyo weliba xisbiga dimuqraadiga ah in dacwadaha laygu soo ogay dhammaantoodba waa ay caawiyeen, maxaa yeelay waxaa noqday xubintii ugu horreysay ee Republikaanka ee codkii ugu badnaa taariikhda doorasho ka helay. Arrintaasina waa ay caawisay ayuu sidoo kale leeyahay. Sidoo kale waxaa la weydiiyey Jack Smith, ninkan baaraha qaaska ah ee Trump, labada dacwadood ee midda Washington uga socotay iyo midda Florida uga socotay ee wasaaradda cadaaladda u xil saartay. Ninkaasi waxaa la yidhi isagana dacwad ma lagu soo oogi doonaa. Waxa uu yidhi taasi waxay u taalaa wasiirka cadaaladda, ninka qofkan u magacaabay haweeneyda la yidhaahdo Pam Bondi. wixii ay u aragto inay saxan tahay ayay iyaduna sidoo kale ay samayn doontaa. Waxa uu yidhi FBI-du gurigeyga ayay baareen, sidaa darteed ninka hadda madaxda ka ah oo Christopher Wray oo Trump uu magacaabay intii 4 sano oo horey waddanka madaxweyne uga ahaa, laakiin Biden uu u sii daayay xilkaas inuu sii wado, xilka ma ka qaadaysa ayuu yidhi ayaa la yiri. Trump markaasi waxa uu ku jawaabay shaqada uu qabanayo ma taageersanin, maxaa yeelay gurigeyga ayuu FBI-da waxa uu ku amray in ay baaraan, sidaas darteed waxa uu yiri shaqadiisa kuma qanacsanin. haddana FBI-da xushmadii ay shacabka Mareykanka ay u hayeen hoos ayayba u sii dhacaysaa, marka waxay u muuqataa inuu xilka ka qaadi doono ninkan Kash Patel uu magacaabay, sidoo kale loo dhiibi doono. Trump sidoo kale waxaa la weydiiyey adigu ma iscafinaysaa shakhsiyan nafsadaada. waxaan ognahay Biden inuu wiilkiisa cafiyey, marka Trump waxa uu ku jawaabay anigu maba aanan samayninba wax qalada. qaar ka mid a looyaro caan ah oo khatar ah oo aan magacooda aanan sheegaynin ayaa waxay igu yiraahdeen ayuu yidhi haddii aad iscafiso waxaad u ekaanaysaa qof dembiile ah. marka waxa uu yidhi wax qalada maba aanan samaynin, maxaan isku cafiyaa? sidaas darteed waxa uu yidhi haddii aan iscafin lahaa way fiicnaan lahayd, lacaga fara badan oo dacwadihii laygu soo ogay iiga baxay ayaa sidoo kale ii baaqan lahaa. laakiin waxa uu yidhi anigu mana iscafin doono ayuu yidhi, maxaa yeelay wax dembiya ma lehi, hadda dhammaanba dacwadihii waa la tuuray ayuu yidhi. midda hadda Georgia uga socoto oo Fani Willis ayuu ka hadlay, waxa uu yidhi taas oo keliya ayaa harsan, iyaduna meesha waa ay ka bixi doontaa, marka inta kalena dacwadihii waa tii la tuuray. ugu dambeyntii Trump waxaa la weydiiyey ma cafin doontaa dadkii taageerayaashaada ahaa ee January 6 lixdeedii sanadkii 2021 weeraray aqalka Koongareeska. waxa uu yidhi arrintaasi haa waan ka fikirayaa oo waan eegayaa ayuu yidhi. sidoo kalena waxa uu sheegay in tallaabo degdeg ah uu qaadi doono. waxa uu yidhi maalinta koobaad ee xilka aan qabto ayaanan dadkaasi January 6 xabsiga ugu jira aan cafin doonaa. waxa uu yidhi dadkaasi waqti fara badan ayay xabsiga ku jireen. waxa uu yidhi 3 ilaa 4 sano ayay xabsiga ku jireen. waxa uu yidhi mana ahan in intaas xabsi ku jiraan, waxay ku jiraan ayuu yidhi meel wasaqa isla markaana laga yaqiiqsado, maba ahan in ay sii furnaato, marka xabsiyada ay ku jiraan ayuu ka hadlaya. hadda dadkan oo January 6 ay wasaaradda cadaaladda ay dambiyada ay ku soo ogtay aad ayay u fara badan yihiin, ilaa iyo 1,000 qof ayay dhan yihiin. dadkaasi intooda badan ilaa iyo Agosto hadda bishii 8aad 944 eedeysane ayaa dacwad lagu soo ogay, waxaana la xukumay intooda badan, iyadoo sidoo kalena qaarkood ay heleen xabsiyo kala duwan lagu xukumay. 1,000 qof 562 ka mid ah ayaa waxaa lagu xukumay xabsiyo kala duwan. 894 ayaa dembigooda qirtay, 288 ka mid ah dembiyo waaweyn ayay qirteen oo felony ah, 606na waxay qirteen dembiyo la yiraahdo misdemeanor oo dembiyada yaryar ah. wasaaradda cadaaladdu waxay sheegtay hadda bishii Agosto ku dhawaad 900 oo qof inay dembi qirteen, waa sida hadda aan idiin sheegay, oo dembiyo kala duwan oo federaal ah, iyadoo sidoo kalena ilaa ku dhawaad 180 ka mid ah dadkaasi lagu xukumay ama lagu helay dembiyo kala duwan, laguna xukumay xabsiyo u dhaxeeya 151 bil ilaa iyo ku dhawaad 12 sano iyo bar. marka Trump wuxuu leeyahay hadda dadkaas iyagana waan cafin doonaa oo cafis kala duwan ayaan u fidin doonaa. haddii cafiskaasi uu fidiyo waxay noqonaysaa ku dhawaad 500 oo qof dad ka badan in xabsiga laga soo daayo, 1,000 kiis oo weli maxkamadaha hor yaallana gabi ahaanba la tuuro. Biden ayaa isaguna hadda waxa uu ka fikirayaa cafis hordhacay inuu usii fidiyo dadka laga yaabo
in Trump uu dabagal ku sameeyo marka xilka uu la wareegay. Dadkaasi waxaa kamid ah Adam Schiff oo horey aqalka wakiilada uu ka tirsanaan jiray laakiin hadda Senate California laga soo doortay ah, Liz Cheney oo Republican ah ee Trumpna ka soo horjeesatay oo xitaa Kamala Harris la ololeynaysay, iyo Dr. Anthony Fauci aan ognahay khilaafkii isaga iyo Trump dhexmaray xilligii coronaviruska uu jiray. Marka wareysigii Trump uu bixiyay oo kooban intaasi ayuu ahaa. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.